Somaliland waa jamhuuriyad ismaamusho ku taal waqooyiga Soomaaliya ay waxa si rasmi ah u aqoonsatay inay tahay dal madax bannaan Israa'iil. Tani waa dhacdo taariikhi ah, laakiin maxay hadda u dhacday? Maxaa lagu bedelanayaa aqoonsigan? Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si rasmi ah u aqoonsaday Somaliland, wuxuuna madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre ku casuumay Tel Aviv. Israa'iil sidoo kale waxay ka furi doontaa safaarad Hargeysa. Somaliland tani waa guul weyn oo diblomaasiyadeed waa markii ugu horeysay dal xubinka qaramada midoobay uu aqoonsi siiyo. Israa'iil waxay daneynaysaa suurtagalnimada dib u dejinta Falastiiniyiinta laga rarayo marinka Gaza ee gudaha Somaliland. Masar, Turkiga, Shiinaha, Midowga Afrika iyo waliba Jaamacadda Carabta oo lagu daray dalal kale ayaa si xooggan uga soo horjeestay aqoonsiga Israa'iil. Xataa Trump waa uu iska diiday. Falanqeeyaashu waxay digniin ka bixiyeen tallaabo noocaas ay kor u qaadi karto xiisadaha, awoodna siiso kooxaha hubeysan ee argagixisada ee gobolka, isla markaana keenta xasilooni darro guud ahaan gobolka. Somaliland waxay aqoonsigan u aragtaa guul ay ugu dambeyn heshay, halka Soomaaliya u aragto mid caqabad ku ah madaxbannaanideeda, taasoo muujinaysa xasaasiyad siyaasadeed oo Geeska Afrika. Aqoonsigani waxa uu sidoo kale la xiriira danaha siyaasadeed iyo istiraatiijiyadeed oo ballaaran oo ay ku jiraan Israa'iil iyo hawlgalayaasheeda caalamiga gaar ahaan gobolka Badda Cas. aqoonsigani wuxuu kor u qaadi karaa xiriiraha iyo fursadaha Somaliland oo caalamka, laakiin sidoo kale wuxuu keenayaa su'aalo ku saabsan xasiloonida gobolka iyo amniga dadka Somaliland, gaar ahaan dhalinyarada la koray jiritaanka Somaliland oo kaliya way u dabaaldegeen aqoonsigan muddo dheer oo la sugayay, laakiin caqabado ayaa weli jira oo ay ku jiraan didmada Soomaaliya iyo dalalka ururada caalamiga ah iyo qorshaha muranka dhaliyay dib u dejinta Falastiiniyiinta. Aqoonsiga Israa'iil ayaa mustaqbalka Somaliland bedeli kara, laakiin waxa la socda khataro. Dacsiis Cabdullaahi, Somali Report.